markana daawadayaal ku soo dhawaada warkii hore dhammaystiran waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Garowe oo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ahna kusimaha injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay xeerka caalamiga ah ee ka hortagga daabulka iyo ka ganacsiga dadka oo sanadkii hore golayaasha dowladda Puntland ay ansixiyeen xafiiska xirlaalinta dowladda Puntland ayaa kulankaasi soo qaban qaabisay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Puntland iyo sidoo kale wakiilka ka socday hay'adaha caalamiga ah ee taageera xeerkaasi wariyahayaga Jacfar Macalin ayaa faafahinta warkani inoo dhameystiraya xeerka daabulka iyo ka ganacsiga dowladda Puntland oo ay meel mariyeen golayaasha dowladda Puntland sanadkii 2017 ayaa maanta laga daafuray magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland waxaana xeerkaasi daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland iyadoo xeerkan ay soo diyaarisay xafiiska xirlaalinta guud ee dowladda Puntland iyo bahwadaagteeda waxaana daafurka xeerkan ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda haweenka wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda amniga iyo xafiiska xuquuqul aadanaha Puntland waxaa sidoo kale barnaamijka daafurkiisa qayb ka ah hay'adaha caalamiga oo ay hogaaminayso hay'adda IOM ee socdaalka iyo jinsiyadaha adduunka bulshada rayidka ardayda wax ka barata jaamacadaha Puntland iyo marti sharaf kale xeerkan ayaa ah mid aad muhiim ugu ah bulshada Puntland si looga hortago falalka daabulka iyo ka ganacsiga dadka ugu horeyntiiba waxaa munaasabadan hadal ka soo jeediyay xiriiryaha ku-xigeenka guud ee Puntland waxaana uu sheegay in dadaal badan uu geliyay hirgelinta xeerkan ka ganacsiga iyo daabulka dadka xafiiska xiriiryaha guud ee dowladda Puntland dambiyadu waa laba nooc ka hortag iyo ka dabatag habka loo dhaqaajiyana waa laba nooc xafiis ahaan in loo dhaqaajiyo iyo qofka dhibanaha inuu soo dacwoodo xeerkani waa mid xafiis ahaan loo dhaqaajinayo ee la sugi maayo qof inuu soo dacwoodo yiraahdo dhibanaan ka ahay xeerarku soo maray xafiiska xirlaalinta guud markuu arkay dambiyadan sida ay u sii kordhayaan xawliga ay ku socdaan markuu taxgeliyay dambiyadan ciqaabaha ku xusan xeerarka ciqaabta inaysan ahayn kuwa ku filan eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha gala dambiga kuwa ciqaabtoodu tahay mid ku filan aysan ka mudnayn ee loo baahan yahay ciqaabo ka badan in loo helo xafiiska xirlaalinta guud markuu arrimahaas iyo kuwa kaloo badan xeeriyay 2002 alifkii ilaa 2015kii ayuu waday sidii loo heli lahaa xeerkan loona sameyn lahaa wuxuuna kala hadlay hay'ado tiro badan nasiib wanaag hay'adda IOM-ta ayaa xafiiska xirlaalinta waxay ka saaciday sidii loo sameyn lahaa tallaabadii koowaad oo hay'adda IOM-ta qaada waxay ahayd in ay xafiiska xirlaalinta u soo magacaawdo khabiiradaas oo ahayd Siciida Qacle waa doctoreso khabiirad qaanuun oo PhD holder ah ayay ahayd mahadiyaha ka gaartay xeerkan ayada ayaa samaysay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay barnaamijkan oo ka kala socday wasaaradaha dowladda iyo xafiisyada madaxa bannaan ee dowladda Puntland ayaa dhankooda bogaadiyay shaqada la qabtay waxaana ay sheegeen in xeerkan dhaqangelintiisu ay geed walba u kori doonaan farkoodaas koowaad uu yahay noloshaan aad ku jirto mid ka fiican hel halkaasna ay gacanta ugu dhacaan dadka wax daabula ama dadka ka ganacsada caruurta yaryarka ah sidaad ogtihiin waxay ku dhamaadaan meel xil ama wiilal ha ahaadaan ama gabdhaha ha ahaadaan waxaba dhici kartaba haweenka xoogaa aqliga leh inay ka fakadaan laakiin caruurta marna kama fakadaan dhibaatooyinkaas ta kaxaynaysa ama islaanta kaxaynaysa caruurteeda sida kuwa hadda anoo jooga guryaha waa idin fasiri doonaa ay boosaaso islaan 4 caruur wadata maxay u soo kaxaynaysaa oo doontii laga soo qabtay waxay u soo kaxaynaysaa nolol inay u weysay caruurteeda oo nolol fiican ay u doonayso
caruurta kaligood socda oo qofna aan wadin maxay u qaxayaan waxay u qaxayaan wacyigelinta oo ka xun inaysan helin waxbarashadii saxa ahayd in gurigii ay dhibaato ku qabaan inay nolol maalmeedkooda midhaa uu maxaa la yiraahdaa dhibaato ku jiro in masawirro iyo wax loo soo diro oo ciyaalkii la faca ahaayo waalidkood dibadda ay tageen ay maskaxda ka xalayaan dhibaatooyinkaas oo dhan marka daabulka iyo ka ganacsiga dadka ka hortagga daabulka ka ganacsiga dadka runtii waa xeer muhiim ah bulshadeena oo dhibaato badan ay ka haysato arrimahanayto runtii muddo dhan walba haddii laga fiiriyo dhib weyn isku saameynayso qofkii la daabulo la kaxeeyo meel in lagu adoonsado in la kufsado in la dilo marka qaarkood in muxuu ahaa xubnihiisa jirkiisa laga ganacsado asaga kow dhibka koowaad ka bilaabanayo dhibkii labaad intaasaan ku ekeenay qoyskii uu ka tegayna runtii dhibaato weyn saameyn dhaqaale burbur maskax iyo muxuu ahaa runtii kulli ku saameynayso waalidkii ka tegeen ayagana dhibaato badan oo dhib u ku hayso marka waa dhibaato runtii badan aafo badanna runtii leh iyo dhibaatooyin badan aan u baahannahay la iska kaashado hadday noqoto dhan dowladeed dhan shacab iyo cid walba runtii ka qayb qaadato si la isaga qaban lahaa muxuu ahaa mujrimiintaas dhibka ku haya ummadeenna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland oo barnaamijkan si rasmi ah u daafuray ayaa dhankiisa sheegay in shaqo muhiim ah la qabtay waxaana uu bogaadiyay dhammaan ka qayb qaatayaasha hirgelinta xeerka daabulka iyo ka ganacsiga dowladda Puntland. waxaan leeyahay waa rajo wanaagsan waxaan leeyahay reer Puntland inaydan ku halaynin dowladda wax kasta inaydan ku halayn dowladdu waa idinka weey askari iyo ciidan iyo xeer ilaaliye iyo wasiir meel walba ma tagi karaan meel walbana ma joogaan kuwa la doonayo inay yacni soo sheegaan oo hay-adaha ku shuqul kale u soo sheegaan waa idinka weey min fadlakum waxaan codsanayaa dabeecaddan wax qarinta iyo qofka xuni hadhowta inuu qabiil noqdo ama qoys noqdo ama reer noqdo min fadlakum aan taa ka gudubno waxaan ognahay dad badan oo dunuub sameeyey oo la qariyay ama lala soo saftay haddii heerku taa taagan yahayba waxa weeyaan qof kasta oo reer Puntland ama Soomaaliyeed wuu gaarayaa dembigu kii qariyay buu gaarayaa definitely wuu gaarayaa marka waxaan leeyahay wax kasta midna baynu kaga gudbi karaa Maxamed Saciid Qoslaaye Puntland TV Garowe.